السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ديال وهنا قاد ميديا وحاج موارق ويدن ليه كسر وهذا دعوة ديال ما تو واحد قرب كيغا فرديا مصطفى شردق حسن أو إن سركال سرا أو كميدا ها عيدا مدى الصوماليا قارهان واقي الشيخ شريف يا شيخ حسن وانمانكي انت بدن كونفور حوريي maanta warar badan buu inooga sheekeyn doonaa iyo sirta badan ee ku duugan dawladnimada Soomaaliya waxa uu inooga sheekeyn doonaa xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta Muqdisho marka hore waan ku soo dhaweynayaa soo dhaw baan ku leeyahay Mustafa waa ku dhawahay adiga iyo xanaqaad meeriyaba waaya Mustafa aad baan kuugu mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga noo hortay su'aasheeda koobaad haddii aan iska bilowdo horta Mustafa ciidanimada halkeed ku soo baratay heer intee leeg ayaad se ka gaadhay ciidanimada waxaan ku soo tababartay dalka Uganda waxaan soo tababaray niman European Union oo loogu talagalay in ciidanka Soomaaliya oo kaliya tababaraan oo ay ku tababaraan qaabka hadda ciidamada caalamka u tababartaan sidaas aan tababarkii ku soo qaatay kii askarinimo iyo kii sarkaal xigeen oo aliflaha ilaa saddex aliflaha iyo kii sarkaalka xidigle ilaa laba xidigla dabeedna saasaan xamar ku nimi xamar ku nimi waxa la leeyahay ciidan intee leeg ayaad markaa hogaamin jirtay waxaan hogaaminay horta marka hore waxaan soo tababartay koox oo 30 qof meelahaasa kadib waan dalacay horin urur 300 iyo in ka badan ma garanaysa ayay gaadhay markii dambe dabeedna waxa la yiri darajada waa soo tababarateen waa soo qaadateen ma garanaysa cilmigii ciidanimada laakiin waxa la ka rabaa inaad ma garanaysa ay la idinka arko ilaa darajada la saaka xidhmay wanaad ma garanaysa horta shaqaysa qorigaaga afkiisa ku xiran tahay darajadiina حبدي حمر يدق على كان كبرولي أفوي مركم تجنيه وقول الشباب هذا عصير. وانصص على دولة نمط مركا إلا الكيد جرسيسن مركا مركا اللي صوته بريء أحمر أتمنى دولة نمط مرة قاعد سنة مكفي لسان ده كنتي ذكره. إنه ارتدل كجوي سباق حلقة الشيخ شريف بعد قبطي. مركا لقى ريابو صوماليا مركا لقى ريابو بلدان يوم قرنا يسا يقلمدو. وأنا نورك هو الدولة كتيرين معمول قبلات. مركا حمر لقى بلعبه شغل هذا خاصة شغل هذا بحق باي يبقال إن كالكدودو نصبر عسير الطاقيبة كسماي تبوين كا نورك صور لنا مركي شخص شريف على قبطي. أنا مركا عيدا كي قبتي أنا كتر سنين حمر مركا لقى صوب بلعبه. ودقود هو ألاقي أي شباب يتعلم. صح. وعاصمة ديا مركا إلا بين بقى أيام قادني تك رجع صوتها برنا كل نبيع هاي. واحد بعض كنول بقى مع سراكيل مع نقرأ يساعي مع عسكر ده. مركا رجع بدكودي واحد كل دنتين دجال كيا يا الشباب لكلام. هل سؤال بقى كرتب ما يسوي واجي الشيخ شريف بقى هاي قرت أدل كي أنت بدنا نقدم قبتين مركا لقى رجع قل بدو كيو بتلان صادور كودك تاي. ما أنت دولة كتلسا. maanta horta dawladdu xamar baa la isku soo galay oo nimankii shabaab la oran jiray xamaamadoodii iyo waxantoodii waxaan barigtay oo tila sheegayeen dekedaha iyo erbodada lacagta ka qaadanaya iyo dukaamada cashuuraya ma garanaysaa marka waa dawlad hoonba ay noqotay hadda marka waxa leedahay al-shabaabna dhanbay cashuurtii ka guranaysaa iyo macadkedaha iyo erbodadana ay haystaan dawladaha shisheeye وسيدة ده مقالة الشيء عالم قدي ورون مال دويد BBC خميستي أنا بك مقالة من حلبان والصومالية لو رئيسنا واي مركب دولة أنت كتلسا دولة سمحي دور سامينات أنت لك بكل هذا حي أهود مقدشية ما ملك مقدشو هرت الدولة دني إذا مقطعية هو في عم بالله صطابة دولتنا هذا شرتها فرماجو قبل يخير لكن عندما دي واحد كيلو تلقى إن أديك بالشدة يدرك الدفاع يسكت قبطان لا مدرن أو واحد هذين حمر ينتقصك هذا قبل دي طلياني قال هايستي صدق كيلومتر بيحملوا شفتي ماشي اللي هو هايستي هذا ما قرأته إن ده الشباب نيتا سميو شرتها صومع حقيقة ضبطها دي كويس تدوك أفضوين إن هالكلام درا إن نفيان أو كشقيان أو ay horoos socdaan bay ahayd ma garanaysaa wuxuu dawladdu u dirtay siyaasad maamulgoboleed isku hayaan baa loo diro kismaayaa loo diray
ciidankii loo soo tababaray in magaalada xoreeyaan ciidankii magaalada xoreeyaan loo soo mayor saddex caasimad iyo gaarkeeda xoreeyaan absolutely kismaayo maamul baa ka jiro kaas hadii lagu taageero in xoreeyaan dalko oo uu hayade laakiin iyagii baa loo diray sababtoo ah si lagu cadaadiyo khilaafka ka dhaxeeya kismaayo ay Axmed Madoobe iyo farmaajo si lagu cadaadiyo ayuu halkaa ugu diray way ciidanka jooga loo diray kismaayo muddo dheer way ag fadhiyaan Axmed Madoobe wax weerar ay ku qaadayaan ma jirto horta halkeebay Jubbaland halkeebay ka degayn ciidankaas waxay ka degayn balad xaawo iyo dhulka maaragtay farmaajo family-giisu degdego sidaan anigu warbixinta deegaynta ku helay marka farmaajo wuxuu u doorbiday inuu xaafadiisa geeyo ciidankaas ay halka khilaaf ka abuuraan markii ay Axmed Madoobe isku dhaceen sax farmaajo family-giisu family Axmed Madoobe meel bay wada degaan marka family-ga farmaajo family Axmed Madoobe labada jubba ayuu bay wada degaan waxaana ka tirsan maamulkan Jubbaland ma garanaysa marka markuu khilaaf ku soo dhex galay farmaajo iyo Axmed Madoobe wuxuu farmaajo damcay si uu cadaadiyo Axmed Madoobe inuu ciidamadan qaado diyaarada ku qaado family-giisa meesha degan geeyo halka ka cadaadiyo qaybta ka gooyo oo kismaayo okay qaybta reerkiisu degan inuu ka gooyo marka Jubbaland imankana maamul cusub uu dhisay waxaan arkay Axmed Madoobe iyo maamulka Jubbaland oo ka soo saaray qoraallo maan maqaltaa laakiin inay Jubbaland heshiisay baan maqlo Axmed Madoobe loo ogolaaday mucaaradkii ay yiraahdeen doorashadan ma ana arkay warqad maalin dhaweyd ay soo saareen Jubbaland ka soo baxday waayo waxaan ku weydiiyay dowladaha xamarka dhasha ومبدأ يعني سيهين خلاف كودي دي منا أنا وين مقارن منه ما حد وامنتين مبدأ يعني سيه وحوي من لماذا إن سوماليا سوماليا بدو بان إن بالواحد ناقش كيسا قاب كه من لماذا مدحدي هره مرتي مرتشرتي يقاب كه ما أنت أي مدحدن دلك شوقي فرماتشي غيره أي يعني من لماذا إن أرتدبر كي هره waxaa jirta waqti aan Somaliland iyo Soomaaliya aanay waxba wada hadal lahayn markii dambe in dadku isu soo dhawaado oo shacabku isu goosho oo ganacsiga ka dhaxeeyo oo dhaqaalaha iyo horumarka wixii caalamka ka imanaya aan la siyaasadeyn ayaa la isku ogaa laakiin dawladdan waxay noqotay mid markii xilka ay qabatay ku amar ku taaglaysay wax walba aniga ay iga go'an هذا ما قرأته مركا واحد نقطون قاب كده دكتاتورون بين نقطة دكتاتور كان اللي هو يقال إنه أود يسوق لي هاي مركاسة دولة النصيرة يصيروا أليكسلو ووقت هذا سومال لانه كل عدد اسمها يستوي ما من قبل تدي يستوي لا يصير رمبا وكعصنا في كبل كهل لي ما أنت لو العديني مقرنيسا أوكي ها تاسنوات هذا وي maxaa ku kalifay marka kula tahay inuu qaabkan isticmaalo fargelinta iyo isku dirka iyo mu'amarada inuu isticmaalo maxaa ku kalifay isagoo wada hadal iyo miis caadi soo fadhiisan karaya waxa ku kalifay waxa weeye wuxuu isleeyahay hunta Somaliland burburiso oo ma garanaysaa midnimadeeda iyo ma garanaysaa wada jirkeeda inta burburiso iyagoo dayacan qayaacay ku yimaadaan okay marka sidii shalay ba dhacday in calanka loo soo cararay ee xamar loo yimi iyadoo la kala socday in koox la soo dhaceeyay in loo yimaado dadka waa qofku midnimada waa doonistiisa marka ciidamada qasbi imikana waxay ku raaci karaan oo midnimada ma garanaysaa ay ku iman kartaa ama reer Somaliland ay ku didi karaan oo goonis taagooda ma garanaysaa ay ku horumarin karaan waa doonitaanka shacabka warabitaanka shacabka siyaasadda go'aamin karo hargeysa jooga mid xamar joogana ma diiri karo ma go'aamin karo warabitaanka shacabka waxay imanaysaa aakhirka marka loo hadlayo shacabka cod laga qaado oo ay codayaan inuu referendum yimaado way taas baan imanaysaa aakhirka taas ma ku soo biishaysaa way in soo referendum la qaaday haddana laga yaabaa sida loo dirisi karo taas waa tii gudaheena laakiin marka beesha caalamku yimaado referendum soo laga qaadayo on day cod ma garanaysaa way aynu Muqdisho ku laabano hadda ciidamada amniga Muqdisho ciidamada badan oo loo soo tababaray tayada fiican leh sida la sheegayo la bumbuunayo ma yihiin kuwa ku filan amniga Muqdisho maxaa ka hortaagan inay ku filnaadaan amniga Muqdisho horta sidoo hore malaasuasha ugu soo jawaabtay horta ciidamada Soomaaliya jooga
amniga way ku filan yihiin laakiin waxbaa meesha maqan waxa maqan waa xiriirkii bulshada iyo amni iyo magaranaysaa iyo ciidankii ayaan xiriir ka dhaxayn oo sababtoo ninka halkaa miinada ku aasaya qofka shacabka arka haddii markiiba hadda laba qof markay halkan isku dilaan booliska qofku amniga booliska ku wacaya haddaan ku wacin booliska ku iman lahaa dadkii iyo bulshadii baan cid isku xidhnaa ayaan jirin oo qofkii miinada aasiya iyo kii qaraxsanay iyo kii al-shabaabka ahaa shacab ninkii shacabka ahaa soo sheegi lahaa inuu dulo ka baqaya marka waxaa la rabaa shacabkii ciidankii iyo dowladdu ay kasbato kadib dadkii magaranaysaa iyo xiriir ka dhaxeeyo arrimo bulsho iyo ciidanka iyo shacabka ka dhaxeeya ay jiraan iyo xiriir iyo warsadaafsi marka amnigu ku sugmaya marka xiriirka kalsooni shacab baan jirin ayaa jirin oo kalsooni shacabku aan kalsooni qabin su'aasha kale ku weydiin rabaa halkaan ku sii darayo waxay tahay haddii aanan khaldanayn waxaan ku hayaa warbixin in maanta muqdisho iyo inta dowladda federaalku ka taliso in xukun ahaan aan dowladda cidibo u aadin dadku xukunka ay ku kala baxaan maxkamadaha al-shabaab maxaa ka jira horta xamar maxkamadda xamar way shaqaysaayo waa la aadaa laakiin gobolada dee anigaaba dee meelaha qaar ogaaba oo maxkamadii ka furlaay xidhmeen oo ciidamaba weyday oo anagu aan joogno ciidanka nahay haddana shabaab gaalkaa kasoo xukumayay tuulooyinka xukunkooduna la fulinaya dad baa dhul isku qabsanaya iyagaa soo xukumaya amarkay qaadanaya wasaasa xukunka lagu fulinaya marka waa cabsi dadku ka qabeen ilaa iyo maanta mid taagan ma tahay ilaa iyo maanta mid taagan way tahay oo ninka ciidankii qofka shacabka wuu naxayaa oo aad uga cabsanmay kalsooni ku qaba laakiin shabaabku ninka amarkiisa diiday madaxa ka goyna way bareynayaan xaq iyo xaq darro kay doonaan bay xukumayaan ma garanaysaa dantaana ku qasbayso waa qasa waa cabsi bay u geynaysa inay u tagaan mooyaane jacayl ay u qabaan iyo dowladnimo magaranaysa maamul uguma tagaan su-aal baan markaa halkaa ku weydiinaya maadaama aad tahay somalilandera muddo dheerna amniga muqdisho iyo amniga soomaaliya kasoo shaqayn jiray su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay labada dhinacba xog fiican waad ka haysaa maanta dowladdii soomaaliya iyadoo aan xamarba gacanta ku haynin ayay faragelin ku haysaa meel walba oo weliba somaliland ay faragelin xooga ku haysaa taa beddelkeeda ka waran haddii somaliland ay faragelin ku samayso xamar iyo dowladda soomaaliya ka dhisan saameyn intee lag bay yeelan lahayd horta waa dee inay somaliland farageliso laga fiican yahay oo soomaaliya horey usoo dhibaatooday maantana walaaliyo wanaag waxaan ahayn oo meesha laysugu iman karaa ama lagu wada hadli karaa ma jirto in dadkii bogahooda qof walba la dhayo ayaa fiican hadday soomaaliya soo faragelisana anigu somaliland inay faragelisana waa qalad ku soxo kulamaan taliyeed laakiin hadday dhacdo waxay noqonaysaa dee somaliland waa dowlad guunahoo intaasoo sano soo jirtay soomaaliyana waa dowlad curdinahoo la dhoodhoobayo saameyn aada u weyn bay ku yeelan kartaa ayaan u malaynayaa laakiin waa tii la yidhi qaniyaa kaa furta haddii faragelintu socoto dabcan waxaad moodaa inaan somalilandna gacmaha laaban doonin muxuu yahay bay kula tahay dhibka ka jira koonfur ama soomaaliya ee dowladnimo uga hana qaadi laadahay dhibka soomaaliya ka jira waxa weeye waa 3 siyaabood mid waxa weeye horta meesha waxa weeye waa soomaaliya waa caasimadii iyo madaxii magaranaysaa soomaaliya dowladda soomaaliya isku oran jiray dalal badan oo inay istaagta aan jeclayna way jiraan ciidan kale oo adag soomaaliya haddii loo sameeyana dalal ka baqaya jira oo caalamka heshiisya la galay oo inay dowladda hana qaado caalamka in badan oo rabin baa jirto cadaadis halkaa kaga haya taasi waa qodob qodobka labaad waxa weeye dhibaatadii dalka ka dhacday iyo magaranaysaa sidii dadku isu xasuuqay iyo dulmi ilaa hadda ka jira oo dee wax nafyada maalba saameeyey ayaa jira taasna aan cidi iska cafiino dadkii waxoodiina loo celin wixii dhintana la iska cafiin ma garanaysaa ta saddexaad waxa weeye nimankan al-shabaabka la yidhaahdo oo laf dhuun gashay dadkii ku noqday oo qarax iyo dhibaato wada laftigoodina xitaa haddii lala wada hadli lahaa lala heshiin lahaa maraykanoo uga dhoweynba waa inu waxba gaarsiin ayaa dowla madaxiisa lacag saaray oo aan heshiiskiisa caalamkan ogolaynba haddama garatay taa laftigeed waxay noqotay qofkan inuu dee mar haddii aanu meel ku nastaba hayn inuu wax walba sameeyo
meel walba ma garanaysaa ay qarax ka rido wax walba sameeyo laakiin muhiimadda waxaan ku talinayaa baliyaga laftigooda heshiis iyo wada hadal kuwa wanaagsan yahay in lagu dayaabaan ku talin lahaa way niyow dulmi badan baa laga sheegaa muqdisho gudaheeda weliba gaar ahaan dulmi badan bal dulumaadka ka dhacay ee ilaa iyo maanta ka jira muqdisho gudaheeda ee aan la xalinin iyo qaar inta mar la xaliyay haddana dub u soo noqday bal nooga yara sheekee maxay iyo horta meesha magaalada muqdisho la yiraahdo bilaadan sani ilaahay u sameyn baan dadku u sinay way horta magaalo aad u fiican oo aad aan jecel weeyaa oo dadkeeda soo dhaweyn wanaagsan iyo kalgacal iyo saaxiibtinimo badan aan ku leeyahay aan kala kulmay waxyaabo qaldana way jiraan waxyaabo saxna way jiraan waxa jira ma garanaysaa dad badan oo hanti iyo guryo ay ku leeyihiin dad haystaan oo degan yihiin baa jiro hadday yimaadaan aan cid u ogolayn haddii la doono dee qisooyin hore dhacay way jiraan oo rag xitaa guryahoodii inta yimaadeen lagu dilay baa jiro dad berahooda laga qaaday way jiraan oo kii xoog lahaa kii aan xoog lahayn dulmiyey miskiinkii lagu joogsaday dhibaatooyinkaas oo dhani way ka dhaceen wanaag badanna way leedahay waa magaalada aanad ka qadad maanta timaado oo aad soo dhex gasho aanad ka qaloonin oo qolomaad cid ku odhanayn oo xaggaa u socota cid ku odhanayn qofka isbarataan baa saaxiibtii gurigiisa tegaysaa isagaa la dhaqmaysaa waa walaalkii unbuu taagan intaan way ku fiican yihiin laakiin sheekooyinka qaar aan ka maqlay waxaa jira qof intoo hadiyo goor beelaha laga awoodda badan yahay intuu gurigiisa loo yimaado isagoo reerkiisa carruurtiisa joogaan in lagu odhanayo waryaa adigu keligaa guriga ka soo baxa ama waan ku dilaynaa kadibna reerkiisa iyo wixiisaba loo weydaarinayo waxyaabaha waan maqlay oo sheekooyin baan ku maqlay waxaan maqlay inay ahayd waqtiyadii hogaamiye kooxeedyadu ka talin jireen markii taliskii siyaad barre magaranaysaa meeshii laga eriyey ayay ahayd oo waqtiyadaasaan da maqlay inay ahayd oo ay dhacday sheekooyin badan oo aad iyo aad u xanuun badan baan maqlo meesha ka dhacay laakiin hadda waxaasi ma jiraan cabashada ugu badan waxa weeye on guri nin leeyahay ama dibadda ku maqan yahay ama magaranaysaa meel kale jiro uu yimaado nin kale digayo ninkina ka bixi laayahay mooyaane xagga hantida mooyaane تعدي بدني ما تشيل لكن وحي هراء صار على عقبة دي وحبا كتير. عقبة دي بقولي عصر. وين سيدنا واركتها وضح الذي سمالي وبحجري والله هذا أنا وبدحين يستاهل به. أرتانو وضح الله سيد توتلي وحنا أركاين هاي مقرنسا وح ملا أوله هو خيالي. وين صابته وحول بحر روا إن وقت جيده. أي دم مقرنسا يكون صوب يقطع. وين إن ما تصومالي يو سومالي لان مقرنسا يده وضح هذا أنت سوي ما دام ما تصومالي قان مصو صارتين سومالي لنا ما عود لك قاضي مع عالمكو مقرنسا اعتراف وما أراكرته. وين إن يدي بدولة يروق عن كل مساواة مع مقولات يروق مقرن يساعي واحد دله ما أنت ندوا ولي ما يحنا قاعدينه مقرن يساعي تقال لك صعدة واللي بعتبر لنا بقصعتها واحد هاي المركة اللي لقوا الله إن نيهو ما أنت صومالي سوي استكتو مال أي حنا قاعدو أي دولة نمدي أمني قصقتو كذا إما مقولات يروح هالشيان إن أنا أصلا بعضنا أو كوضع هذا القضية كهرنا وحي أهرم بالشاة وحي مالقشية وحي ما قرنا يساعي هيدا يا رب برناك بالسنة برناك وحي لقصه قلية إن أنا أسكس يعني أنا قفل وحي سيحقوا لي هاي قاطو مجتمعية بالشديد ضد كان عن عيب يسوق لنا سوشيال ميديا وحلا سومر سينو ضد كلا السنة وما ضد ولا لاوي يو تكلا تيجي معي هتاي ما دول المخ كلا تكان ليج يو سوالي مودي ولا ما قرنا يسوي بالشهان دي كلا تيجي معي مركا إن ضد كنا بالشهان لو بعدين عبد اللي كلا قلين ما قرنا يساي وهذا كان وقت يسال السوق ومالك حصل ولا الله كف يعني ذا وكلا تاني الحاطة لكن هذا هو اسكتك لكن هذا اسكتك دقو لوده قدية لا صاري قدية الصومالي لا صارتي كم قرنا يسا صومالي صارتي كصومالي أنا واحد كم أنا من دماغ الصومالي ولا ما تعبان أي الله صفرة كي الصومالي أنا على صفرة قالوا استاج الصومالي لا واحد ويجي لا ما تعبان بل بحكي والله الله يعني كاس يسوي ما كره
تكلم شرطنا وحوي ده قامد اللي قالوا إن بدن إن أنا فيلم بكرين ده دولة الصومالية سبت ما بقول ده دي وسعيان حديم مكان لوجه الشيوين حدود الصومال لان أي بوت لان دوبه قدر وقتها بالدولة الفدرال مفلين كرتها مفلين كتب من أمريكا كتب لا من أمريكا أوكي رجعوا هو يدل كي بقى عندكم عيسو منا اللي راح ذكره وي سؤال كلام كويدين هو حياتها هاي إذا ماذا ديل السركال كيس مالان لصوته برا إمك بيشان مية ما أنت كوبي صوتك كأحنا دفعتي وجوه الرئيسية دلك جديه صلوته برا معلمين أي تابرا سومالان درهي سيدا دوارك تهرت أرت سومالان دولة جونه تسود سنوسو تشتي tii hore de Soomaaliya de burburtay de ciidamadoodii iyo macallimiintoodii iyo saraakiishoodii ku jireen oo kuwan ba soo tababaray iyo kuwii hore ma garanaysaa markaas aad iyo aad baan u faraxsanahay waana de saraakiil dalkoodii ku tababartay waa guul ay gaadhay ma garanaysaa Somaliland talabaad aan ku qancay aad iyo aad aan u dhacay waxa weeye qaabkooda iyo haykalkooda iyo labiskooda iyo ciidanimada ka muuqata iyo disciplineka askarina qodobka koowaad ee askarinimadu lagu garto dawladdaasina askarteeda tayad leedahay waa inuu askarigu discipline leeyahay oo shuruucda uu hoggaansan yahay dawladnimada askarinimo u taala iyo qodobada caalamiga u yaala askariga marka intaana askarta Somaliland way dhamaystirtay oo u dhamaystiran yahay markaas aad iyo aad baan u hambalyeynay ciidamada Somaliland waxa leeyahay كوشي واحد جينا إحنا قرب كنا هالجو إن شاء الله آمين إن شاء الله تعالى ويقول بين حد كلها تلنا هاي دلني هذا الشعب كي حكومة الدولة ده سومالان جودهان نعرف واحد كلها تلنا حكومة واحد كلها تلنا شعب كنا واحد كلها تلنا دلني هذا واحد كلها تلنا حكومة واحد كلها تلنا إن الدت كذا مقشوع على شدود إن عدالة سمايسه إن مسق ما سق أي رئيسه إن واحد يرد على هذه الدولة كصوب حدث كواحد أو قبته تحسن كلها تلنا وقرنا يسا شعب كنا واحد كلها تلنا من مدينة يوم قرنا يسا يودا تركينا أي واحد كنت هنا من مدينة يودا تركينا إلى عشرة هذه مضح من إذا قبضتهم معارض كل قبطان مضح يقول تجي ساعة لكن دلك تجي معي إن دلك نقول إنسان أو بربركا يكلا تفرارك إسكايل على لسان أنا بدي هاي طليرة أنا واحد كوكولات هلنا يا تلك وحي الله صامرين ما وجدين أبياش نبين الله شكاية واحد بدنا عادي قناروي مركز وحمالنا يهب الويل لا بكرمها لا بكرمها مركز إن محايدة إذا كنا حلقي أبياش نيجي كسي حنا قادم تلك يدك راحوا برتان تيسر راحوا قبرتان ويي مصطفى واحد شراب دلنير بدن أو ما أنت أسي هنقل تاجية حمر يو كونفور يو من ما حد تكتجه سيدابات مركب دليرتا ما حد كلها تلنا هاي هو طبعا كلها تلنا لما غضب وين هرتا حمر دوا دل Soomaaliya وتيك هرتا وين دولتي دنا ودقلك هرتا يوم قرني سعيد دستور كذا بالشيء أنا حضرته كنا نقطه لكن حتى كشو دولتي لا كشو شغلة يعمل كات كهيسة دولة نواس مقرنس على الويد مريدة قاعد كشيء مو يعني وحن قررنا هذا الحاجة يودت كات كتبي أفلقادو يوم مقرنس اللجويو يوم مقرنس هاي هذا قدامي ناتكو سمينة أتكو إكارتاو مقرنس هاوش هذا Soomaaliya كهيسة أيام كلها الله وأعتقد محسنتها هل كسكسك بجبنا إن شاء الله تعالى أنت تاني أنت ندوب كل مدورنا برنامج نوعنا كلا وحمد الله نهاي أنا مصطفى با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام.